halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax Arbaca 15 bisha Abriil sanada 2020. arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa kamid ah madaxweynaha wadanka Mareykanka oo hakinaya dhaqaalihii uu dalkiisa siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO isagoo ku eedeeyay in aysan si wanaagsan u maarayn cudurka coronavirus. dad badan oo Afrikaan ah oo ay Soomaali ku jiraan oo saameeyay takoor lagu geystay dalka Shiinaha. haddaba markii hore sidee arrintaasi ku bilaabatay? Nigerian oo soo booqday magaaladan Guangzhou ayaa laga helay cudurkii markuu hospitaalka tagay meeshii lagu karantiilay uu ka soo baxsaday magaaladii uu soo dalay suuqyadii iyo maqaaxiyihii uu booqday meeluhu booqdayna waxaa la ogaaday inay cudurkii qaadeen. allah u naxariistay fanaankii caanka ah Cumar Cabdulle Shooli oo xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho. إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر شولي حلقان عن وضع هذا لأنه مدة حل ساعة كهر ودنتي وأنا قلت أنت مقالة المقدشو سبيتال اللي يراهدو ياردميري أو كويالا سكولة بلوسيو دبر كيسارين عبادة. dhanka kale maxay dadka u tarayaan walxaha wajiga lagu xirto ee caafimaadka? xirashada face mask waxba dadka u tarimayso haddaanay mar walba farahooda dhaqin. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geela anigoo Cabditax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinayo balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Axmed Bader. mahsanid Cagaare. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu hakiyay lacagihii Mareykanka ay siin jireen hay'adda caafimaadka adduunka iyadoo dib u eegis lagu sameeyay qaabka ay hay'adda ula tacaashay cudurka safmarka ee corona. shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad ee Mr. Trump waxa uu ku eedeeyay hay'adda caafimaadka adduunka in si xun ay u maareeyeen corona isla markaana ay qariyeen faafitaanka fayraskani ayna tahay in la xisaabtamo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in waqtigan aysan ahayn waqtigii ku habboon in la dhimo dhaqaalaha hay'adda caafimaadka adduunka. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa ka bilaabatay doorasho lagu soo dooranayo baarlamaanka dalkaasi. codaynta oo loo isticmaalayo warqado ayaa dalkaasi ka socota iyadoo Koonfurta Kuuriya ay markaasi ka mid tahay dalalka uu ka dilaacay fayraska corona. codbixiyaasha ayaa waxaa la siiyey qalabka gacmaha la gashada waxaana gacmaha lagu dhaqayaa dareerayaasha dila jeermiska iyadoo codbixiyaasha sidoo kale ay xidhan yihiin qalabka sanka lagu duubto. waxaa sidoo kale dadka cod ka dhiibanaya doorashada baarlamaanka Koonfurta Kuuriya la baaraya heerkulka jirkooda. hay-adaha duulista rayidka ee dalka Shiinaha ayaa waxay sheegeen in dhaqaalaha shirkadaha diyaaradaha uu aad hoos ugu dhacay. shirkadaha diyaaradaha ee Shiinaha ayaa waxa ay qasaareen ku dhawaad $5 bilyan saddexdii bilood ee ugu horeysay sanadkan. tirada rakaabka bishii March ayaa ahaa 15 milyan taasi oo ah hoos u dhac gaaraya 70% marka loo barbardhigo sanadkii hore isla bishan March. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuusan madaxda gobolada Mareykanka ku qasbi doonin in ay soo afjaraan xayiraadda la soo rogay. waxa uu sheegay in barasaabyada gobolada ay markaasi u ogolaan doono in ay dib u furaan dhaqaalaha waqtiga ku habboon. isniintii ay ahayd markii Mr. Trump uu sheegay hadal muran dhaliyay oo ahaa in uu awood u leeyahay inuu qaado xayiraadaha lagu soo rogay guud ahaan dalkaasi. waa taad baad u mahadsantahay Axmed Bader ayuu kaasi oo nala socodsiinaya wararka caalamka halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilownaa sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in xukuumaddiisa ay hakiso dhaqaalaha ay siiso hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO. Trump waxa uu sheegay in WHO uu ku eedeeyay in ay ku guuldareysatay waajibaadkeeda asaasiga ah marka la eego jawaabta ay ka bixisay faafitaanka cudurka coronavirus. hadalka Trumpna waxa uu imanayaa xilli cudurkani uu farabaan ku hayo wadankaasi Mareykanka. faafahinta warkan waxaa isku soo duwa haatan stuudiga ugala soo biiray Xasan Cali Geel. Xasan inoo warar. cabdifataax madaxweyne Trump waxa uu ku eedeeyay hay'adda qaramada midoobay WHO in ay si xun u maareysay isla markaana qarisay faafitaanka cudurkan coronavirus tan iyo markii uu cudurkan ka bilowday dalka Shiinaha. waxa uu na sheegay in ay khasab tahay in haatan lala xisaabtamo. Trump horay ayuu hay'addaasi caafimaadka adduunka WHO ugu eedeeyay in ay u xaglinayso dhanka Shiinaha. madaxweyne Trump waxa uu sheegay in
WHO ay ku guuldareysatay in si fiican ay u qiimeyso cudurkani markii uu ka bilowmay ee magaalada Wuhan ee dalkaasi Shiinaha. hase yeeshee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in hadda aysan ahayn waqtigii dhaqaalaha laga jiri lahaa hay'adaasi WHO. Mareykanka ayaa ah dalka dhaqaalaha ugu badan ku bixiyo hay'adaasi WHO, waxa uu sanadkii la soo dhaafisiyay $400 milyan oo u dhiganta in ka yar 5% miisaaniyadda guud ee hay'adaasi, halka dalka Shiinahana sanadkii 2018 ilaa 19 uu hay'adani ku bixiyay kharash gaaraya $86 milyan sida lagu shaaciyay internetka hay'adani WHO. hay'adani caafimaadka adduunka WHO ayaa bishii Maarso codsatay $675 milyan si gacan looga geysto la dagaalanka cudurkan safmarka ah, waxaana haatan la filayay in $1 bilyan ay mar kale codsato. waata Trumpna waa hadlay Soomaan dabcan Trump waxa uu leeyahay dhaqaalahaasi waanu ka jiraynaa, waana tahay in ay mar kasta ay u fiirsadaan waxa ay sameynayaan, qarashka Mareykanka uu bixiyana aan si khaldan loo isticmaali doonin. Today I'm instructing my administration to halt funding of the maanta waxaan farayaa maamulkayga in uu joojiyo dhaqaalihii uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO inta dib looga eegayo oo laga qiimeynayo doorka hay'addani caafimaadka adduunka ay ku lahayd sida xun ee loo maareeyay iyo qarinta xaqiiqada faafitaanka coronavirus. haddii WHO ay shaqadeeda qabsan lahayd oo ay khubaro caafimaad u diri lahayd dalka Shiinaha si ay u soo qiimeeyaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta dalkaasi, isla markaana ay muujin lahayd daahfurnaan la'aanta Shiinaha, waxaa la xakameyn lahaa faafitaanka cudurkaasi oo waxaa aad u yaraan lahaa dhimashada uu sababay. arrintaasi waxa ay badbaadin lahayd nolosha kumanaan kun oo qof, waxaana laga baaqsan lahaa waxyeelada dhaqaale ee adduunka ka soo gaartay cudurkan. taa beddelkeeda WHO waxa ay dhab u qaadatay hadalka Shiinaha, waxayna difaacday ficilada dowladda Shiinaha. waa tahay kaasi waxa uu madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump isla Shiinaha inuu tagnay dhawaan ayay ahayd markii midowga Afrika uu ka codsaday dowladda dalkaas in muwaadiniinta Afrikaanka ee jooga dalkooda aan lagula dhaqmin midabta koor iyo gabadhfal. arrintan ayaa timid kadib markii la isla dhex maray warar sheegayay ama fiidiyo muujinayay dad Afrikaana oo goobihii ay deganayeen laga saaray laguna qasbay inay wadooyinka seexdaan. haddaba sida ay wax u jiraan iyo halka ay dhibaatadaas salka ku hayso ayuu Dr. Maxamed Xaaji Rashiid wax ku bartay waddankaasi muddo dheerna deganaa magaalada xudunta ah dhibaatadan Guangzhou uga warramay wariyahayaga Faarax Lamaane. markay ahayd taariikhdu 9 bisha ayaan ogaanay in Afrikaanta aad loo taageeraynayo oo la rabo inay gurigooda joogaan. waxayna ku bilaabatay in Nigerian ah oo soo booqday magaaladan Guangzhou ayaa laga helay cudurkii oo positive noqday. markuu hospitaalka tagay oo meeshii lagu karantiilay buu ka soo baxsaday, magaaladii buu soo dalay suuqyadii iyo maqaaxiyihii buu booqday. meeluhu booqdayna waxaa la ogaaday inay cudurkii qaadeen, hal maalin magaalada ku maqnaa. kadibna dib baa loo qabtay. marka ninkaa hooshii ka bilaabatay bay Afrikaanta hooshooda kasoo bilaabatay dhammaan madowga ah in la yiraahdo guriga joogaan. amarkaas marka ma dowladdu ka soo baxay? amarkaas dowladdu ka soo baxay. haa, dowladda ka soo baxay. waxaa nagula qasbay wix allaala wixii Afrikaan ah ee magaalada degan, wixii resident ah waxaan resident ahaynba inay magaalada gurigooda ku joogaan 14 days. maxaa ka jira wararka sheegaya in dadka Afrikaanka ah si xun loola dhaqmay oo guryihii laga soo saaray oo wadooyinka ay daadsan yihiin? waa run arrin sidaas ugu dhacay, wuxuuna ku dhacay weliba dadka aanan lahayn deganaanshaha dalka Shiinaha. haddaadan deganaansho lahayn dalka Shiinaha waxa weeyaan guryaha iyo haddii kartid waxaa lagu ogol yahay inaad degtid hoteelada. maadaama ninka odaga ahay Nigerianka ah uu soo baxsaday, hoteeladii waxay bilaabeen inay dhahaan ma aqbalayno qofkii madowga ahaa. marka dadka madowga ah waa magaaladii hoteeladii maadaama loo diiday inay degaan, guryihii qaar inay degaan loo diiday, marka magaaladii bay soo wada doobteen. marka qoraaska meesha ka bilowday dadka madowga ah hooshooda inay banaanka ay taagaan ay dariiqada daadsanaadaan. markii dambena dowladda waxay samaysay inay aruurisay iskugu geysay meel gooni ah si loogu karantiilo. waxaa iga warantaa dadka Soomaalida ah ee magaalada aad joogtid ku nool, arrinkan sidee buu u saameeyey ah in karantiin la galo oo Afrikaanka nacaybka loo qabo lagala dul dhaco dadkii madooba oo halkaas joogay oo dhan? wallahi kulli anaga waa dad Afrikaan baan nahay. Afrikaanta wixii baan la qaybsanay. kulli waxa hadda Soomaali la taageeray ma jirin. weliba Soomaalida community ugu wanaagsan bay ku jiraan xaggan degan. wax hadda specific oo Soomaalida loo geystay malahan iyo wax dadka loo geystay ma jiro. dhammaanteed waxaa la wada yiri guryaha joogaan iyo soo bixin
14 maalin wayna u hoggaansameen oo hadda way sugayaan wixii ka soo baxay jawaabta dowladda insha Allah. safaaradda Soomaaliya wax xiriir ma isla samaysan? maya hadda kulli wax oo specific ah Soomaaliya safaaradda xiriir ma jiro. waxaa ii sheegtay in 9kii bisha ay ahayd markii laydinku wargeliyey inaad guryaha ku xarootaan ilaa maantana waxaa ka soo wareegtay qiyaastii 6 maalmood marka maxaa isbedelay? run waaye waqtigaas nala karantiilay waa nala testigareeyay cudurkii baa nagala testigareeyay waxa waaye waxaa noola diray guriga nagala imaaday swaabkii nagala qaaday dadkii negative ka noqday waxaa hadda loo bilaabay in tartiib loo fasaxo oo hadda dhalinyarada maqlaya in la yaayay maanta laakiin inaga weli mana radaynin laakiin waxaa nagula wargeliyey wixii negative in la sii dayn doono insha Allah. maxamedow waxaad bal iiga warantaa dadka shiinaha maadaama aad sanooyin dheer joogto meesha aad wax ku baranaysay dadka aad jiiraanka tihiin ama dadkii aad wax wada baranayseen arrintan sidee bay u arkeen? wallaahi horta dadka Chinese-ka overall waa dad wanaagsan oo dhaqankooda iska wanaagsan yahay oo uma kala socno marka wax la baranaysa ama marka la shaqeynaysa intaba hadda maadaama xaaladan ay dhacday xitaa waxay bilaabeen in qaarkii ay taqaanaan bay kusoo tagtagarayaan kuwa guriga hortiisa ay fruits keenaan bay hadda bilaabeen qaarkii ay taqaaneen overall waa dad wanaagsan oo hadda kuma ogeen sheeg wax oo ansuriyen wax lamid ah kulliya waxaan isleeyahay arrinkan iyo xoogo kusoo aaday waqtigiiyo kacsan marka waxaan rajo ka qabaa inay normal kusoo laaban doonto xaaladda insha Allah. Dr. Maxamed Xaaji Rashiid ayuu kaasi ahaa u waramayay Faarax Lamaane. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:12 waqtiga bariga Afrika markanse wararka coronavirus aynu ka nasanay Allah u naxariistay wax magaalada Muqdisho xalay ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee Cumar Cabdulle Shooli madaalihii hobalada waa bari kaas oo kamid ahaa baalashii fanka Soomaalida. Cumar Shooli ayaa sidoo BBC-da u xaqiijiyay abwaan Xirsi Dhuux Maxamed Weheliye gudoomiyaha golaha abwaanada waxa uu muddo ku noolaa magaalada Muqdisho halkaas oo uu ku soo ritay xanuunada macaanka iyo dhiigkarka. Haddaba saacad ka hor saqdi dhexe xalay ayaan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho waxaan kula xiriiray abwaan Xirsi Dhuux Maxamed Weheliye oo aan weydiiyey faafahinta warkaas oo markaasina soo gaaray. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ما دنت وإلهي عمر شولي وحو دنتي مدو حد حلقان أنا وده هذا لأنه مدو حل ساعة كهر ودنتي وأنا قد دنتي مقالة المقدشو سبيتال اللي يراهدو يردميري وكويالا سكولة بلوسيو دبر كيسارين عبدا أيو قد دنتي أنا قد سبيتال كلمة تقول واحد إيه حقيقي ويل كيس أحمد دايبا إيه حقيقي لأنه قد دنتي وأيو قويسكا وأن لا السعودة وأن لا حريرية رميه وتدن وأن لا السعودي مركو ننكو دنتنا ويل كيس يساقو دول تاقنو سواعي أحمدي الله ونحرسته عمر شولي saqdi dhexe baa hal saacatan ka dhiman tahay saacada bariga Afrika marka abwaane muxuu u geeriyooday Cumar Shooli عمر شولي horta labadii sano u dambeysay ayuu joogay magaalada tan Muqdisho intii ka horeysay in muddo qurbo ku noolaa caafimaadkiisu wuu fiicnaa hase yeeshee waxa la xiriiray cudurradan sokorta iyo maaragtay dhiigkarku ay kamid yihiin hadda xilligii dambe waxa aad ugu kacay sokorta iyadoo labada lugood awoodda ka qaaday dhibaato ka badan sokorta sida ugu kacday oo hadda anagu aan ognahay ma aysan jirin hadee mar hadii malakumoodku ku soo maago oo waqtigaadu dhamaado waa iska sabab marka waqtigiisi baa dhamaaday Allah u naxariistaan leenahay maxaan ka naqaan marka Allah u naxariistay Cumar Shooli Cumar Shooli waxaan ka naqaanaa waa aabba Soomaaliyeed oo isagu dhalay 22 caruur ah waa nin dhashay abaarihii qiyaasta 1939 meelaha oo 81 jir da'diisu tahay waa nin fanaaniinta qaranka khaas ahaan hobolada waaberi ku soo biiray 70-yadii waa nin la baxay madaalaha hobolada waaberi waa nin shaqo badnaa oo qarankan Soomaaliyeed dadaal badan u soo galay waa nin muxuu ahaa wacyigeliye weyn ahaa oo fanaan Soomaaliyeed waa nin taariikhda fanka baal dahaba uga jira aan dhihi karo maxaa kamid ah marka waxyaabaha lagu xasuusan doono Cumar Shooli Cumar Shooli waxa lagu xasuusan doonaa shaqo badan oo uu kula baxay madaalaha hobolada waaberi anigoo xasuusta inuu hal habeen ilaa subaxdii ka shaqeeyay 5 goobood oo ka howlgalay sida degmada Afgooye oo uu show wax uga galay degmada Wadajir degmada Kaaraan hotelka Jubba
iyo barnaamijkii kadis ee subax walba lagu tugi jiray national theaterka taariikh weyn baa lagu xasuustaa waxaa lagu xasuustaa heese badan oo uu qaaday oo jacayl iyo muxuu ahay wadani intaba isugu jira inta badan riwaayadaha gitaarka ayuu yeerin jiray wuxuu ahaa nin ku fiican dhinaca muusiga iyo dhinaca heesida intaba marka yani waxyaabo badan oo fanka yani baal oo ka maqan waayo run ahaantii waa tiir ka jabaan dhihi karaa heesaaga iyo musicianka labadaba kaasi waxa uu ahaa abwaan xirsi dhuux maxamed weheliye gudoomiyaha golaha abwaanada oo ii waramayey dhanka kale waxaanu dhex qaadnay kaydka b b c da oo aanu ka soo helnay waraysi wariyihii b b c da hargeysa howlgab ka noqday axmed siciid ige uu magaaladaasi kula yeeshay cumar shooli allah naxariistee kaasoo qayb ka aha barnaamijkii martida jimcaha ee baxay dabayaaqadii bishii abriil 2013 kabankaasi way idin garateen waxa weeyaan fanaanka weyn ee cumar cabdulla shooli hargeysa ayuu ku sugan yahay haatan laakiin waxa uu safar dheer uu ku soo maray dalal badan oo afrika ah cumar cabdulla shooli heesa badan baad qaadi jirtay bal xagii hore inuu yara dhaqaaqnay bal dadka in yar ma ka maqashin kartaa tan had iyo jeer caankaad ku tahay ee ducada ee xagga aroosyada maxaa leedahay horta heesta ladnaan kuwaara ka soco garwabeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii lagarwabeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii ladnaan ku waray labadiisku raagti libaankayaga waa hees aad iyo aad u duca ah laakiin dadka waxaynu kaga teganaa muusigii horaad ku bilowday heestee baa tii cabdilla nuurudiin bay allah yarxamo isagu sameeyey wariyaha kale macashabin hadal damqumaan uran doqaagu wuxuu rabo holandinba ku galo weli diiday kumaan uran dadku wou dagaalaa dabadeed heshiiya inaad raacdo dulkale wax loo dulqaada naftaydii didayo kama daadegayse alaasegay dawbi iga dorogo watan dayradaadan ku dadaalayayo imaadiidayside ogow dumarku kaa badan waan kaa daldorsaday dushayga xayanin la dabaalo waaw cumar cabdulla shooli ayuu ahaa kaasi oo hargeysaan kula kulmay cumar aad iyo aad baad u mahadsantahay adaa mudan axmed saciid cige waa taala u naxariisto cumar shooli ayuu kaasi wuxuu waramayey wariyihii howlgabka ka noqday b b c da axmed siciid cige waxaanu ka soo jirnay kaydka b b c da barnaamij baxay dabayaaqadii bishii abriil 2013 ee martida jimcaha halkaad nagala socotaanna waa b b c aanu dib ugu laabanno wararka la xiriira cudurka dunida aafeeye ee coronavirus ee waxaa inta badan dunida lagu soo rogay tallaabooyin adag oo lagu gol leeyahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunkan cudurkanna waxa uu aad ugu faahfaaba laleeyahay meelaha ciriiriga ee dadka badan isku yimaadaan hase yeeshee waxaa muuqanaysa in magaalada hargeysa aanay wax badan iska bedelin habkii loo raaci jiray gawaarida dadweynaha oo inta badan wax walba sidoodii ayay ku socdaan wariye cabdulaahi jaamac ayaa waxa uu ku horgalay haddaba qaabka u shaqeeyaan gaadiidka dadweynaha ee magaaladaasi hargeysa kadibna warbixintan ayuu inooga soo diray basaska magaalada hargeysa ka baxa iyo kuwa
dadka u kala gooshiya xaafadaha iyo degmooyinka magaalada ayaa waxay isugu jiraan kuwa qaada 25 qof iyo kuwa qaada 30 qof oo mar walba buuxa waxaa jira kuwa yaryar oo iyagu qaada intaa in ka yar oo ilaa 12 qof qaada oo minibus loo yaqaano bas kasta iyo istaan kasta oo aad tagtaa waxaad ku arkaysaa dadkii oo buuxa oo basaskii boobaya oo waliba hal albaab ka wada gelaya isla markaana faraha wada saaraya hal meel oo kaliya lacagta ayay isku soo dardaraan oo ay waliba isku dhiidhiibaan oo ay markaasi iyada laftigeedu ka mid ah waxyaabaha laga yaabo in haddii qof xanuun qaba uu lacagtaa taabto kuwa kalena ay qaadi karaan cabdiraxmaan xaashi cabdilaahi oo loo yaqaano Gurey waa gudoomiyaha guddiga iskaashatada basaska ee Hargeysa City Bus gudoomiye basaskii way buuxbuuxaan dadkii buraasti dhinaca isku wada hayaan xanuunna waa jira maxaa talaabooyin qaadeen run ahaantii annaga iyo dawladda hoose markii ugu horeysayba waxaan qaadnay talaabo ay nagu hogaaminayeen dawladda hoose waxa la sameeyay tiimam fara badan oo buufinaya gaadiidka dhammaantood waxa kaloo la sameeyay meelihii farxaladii oo maalin walba biyihiina lagu shubo hawl joogtayna ka socoto marka cabdiraxmaan waxaan arkayaa basaskii oo intay buuxsamaan xataa albaabadii la haysto albaab qura laga wada gelayaa meel qura la wada taabanaya dadkii kulligood ku raacay ma u farxashaan mise qof waliba markuu soo gaaro baska fuula istaan walba hor yaalaan waxa lagu baraarujiyaa qof kasta markuu fuulayo inuu farxasho darawalkana waxaan ku baraarujinay inuu ka qaato maxay tababarka nimankan dawladda hoose ee buufinaya si uu isagu hadhow ula wareego inuu baskiisa ku filaado buufintooda wax joogta iska noqdo marka qof kasta waxa lagu baraarujiyaa inuu markuu fuulayo farxasho markay imika albaabka oo kale dadku wada haystaan qaarkood inta fadhida maaha inta taagan kuwa ka waran ay hadana dhinaca isku wada hayaan inkastoo baskiiba dadka dhinaca isku wada hayo run ahaantii dadka taagan diyaar uma nihiin inay istaagaanba badi waxaan ku baraarujinay inay ka daayaan waqtigan imika cid istaagaysa iyo dadka faraha badan ee u qaadayo waxaan ku baraarujinaynaa inay maxaaday ilaaliyaan aniga iyo gudoomiye Cabdiraxmaan Gurey waxaanu soo wada gaarnay mid kamid ah istaamada dadka ay aadka uga fulaan basaska oo aad u mashquulsan mid kamid ah basaskaasi oo dhaqaaqay ayaa mikrofoonka aan la tiigsaday bal mid kamid ah rakaabka oo aan weydiiyay aragtidiisa sida uu u arko basaska iyo sida dhinaca dadku isugu hayaan iyo xaaladda waqtigan taagan ee xanuunka coronavirus sida uu arko wuxuu ku bilaabayaa magaciisa magacayga waxa la jaamaa Ismaaciil kulli adugu xawii jiraan xanuunadan halista ilaahay naga hayay caalamka khalqaliyi inay laftigeenu inta xadir sameeyno aynu wixii ilaalinay si ilaahay wax ilaaliye si oo mar dawladii wasaaradda caafimaadka aynu tidin aynu qaadano waa muhiim imika dhinacaas wada haysan Soomaha 30 qof baa laga yaabaa inaad tihiin baskii baa saaratihiin dawaa arkaysaa haddii mid qufaco ama heedhiso wixii lagu kala qaadinay intaaba tahay ama la istaabto ama halkuu qof taabto oo ka kala taabto arrintaa ka war wallaahi kulli arrintaas waxay waa arrin khalad ah dadku inay ka taxadiraan oo kala fogaadaan oo ay ma baawir yarkeystaan ama ay lugeeyaanba ee muhiimadu ay yahay laakiin si wanaag waxa weeyaan inagu ma wayna ka taxadirino dawaynagan afraafta wana wada fadhina haddii ilaahay nagu ma keenay calaamadaha waddankeena lagu arko aad ba dhibin ugu noqon arrintaas codkaana wuxuu u dambeeyey warbixintii cabdulaahi jaamac uu inaga soo diray magaalada Hargeysa dhanka kale wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa qasab kaga dhigay shacabkooda inay xirtaan walxahan sanka iyo afka lagu duubto marka ay guryahooda ka baxayaan iyo waliba in ay dadku kala fogaadaan ujeedka ayaa ah in hoos loo dhigo fiditaanka cudurka COVID-19 ee sida fudud ay dadku u kala qaadaan hase yeeshee bulshada Soomaalida ayaad moodaa in aanay arrimahaas ku baraarugsanayn sida ay ku doodayso Dr. Faadumo Maxamed Ismaaciil oo khadka taleefanka ugu warantay waryahayaga Axmed Maxamed Ibraahim Axmed Nagaashi walaal xidhashada face mask hay'adda caafimaadka adduunka waxay ku talisay in qofku uu xidhan karayo mask marka uu daryeelayo ama uu haynayo qof xanuunka COVID-19 qaba marka labaad ay ku talinayso inuu qofku face mask isticmaali karo waxa weeyaan haddii uu qofku leeyahay qufac hindhiso calaamadaha hargabka kale haddii uu leeyahay inuu xidho si aanu dadkii kale bulshada aanu xanuunkii ugu sii fidinin ayaa inta badan ay ku talisaa waxa kaloo muhiim ah inaynu ogaano mar walba xirashada face mask waxba dadka u tarimayso haddaanay mar walba farahooda dhaqin qofku haddii uu maro caadi ah sidii mask oo kale uu xidho fayraska ma ka celinaysaa maradaasi walaalo horta face maskan aynu naqaano ama inta badan xarumaha caafimaadka yaala waxa lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka ah inay xidhaan laakiin imika waxa jirta wadamada qaar soo saaray in isticmaali karayaan face maskada laga sameeyo marada caadiga ah ee guryaheena iska taala
waayo adduunkii waxaa ka dhacay shortage ama waxaa ku yaraaday face maskedii caadiga ahaa ee lagu talagalay shaqaalihii caafimaadka. marka weli ma jirto daraasad sax ah oo WHO ay xaqiijisay in face mask guriga lagu sameeyo uu dadka wuxuu tari karay 100%, laakiin waxaa jira daraasadooyin sheegaya inuu walow percentage ha noqdee uu dadka wuxuu tari karayo oo u dhaamo mask la'aanta kulay u dhaamo. wadamada qaar baa jira iyaguna sheegay in bilaabeen isticmaalkiisa sida wadamada Mareykanka oo kale, Czech Republic oo kale, Kenya oo kale, taasoo sabab ay u tahay tiradii surgical mask ama medical face mask lagu targa shaqaalaha caafimaadka oo yaraaday. Hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka laga helay dadka cudurku ku dhacay, dadkuna weli waxa ku adag inay kala fogaadaan oo aanay isdhexgelin, mana jecla inay arkaan qof xidhan oo dhex socda dadkii, oo waxay u arkayaanba Soomaalidu inuu yahay qof cudur iyo xumaan saadsanaya. arrintaasi halista ay ku yeelan karto caafimaadka guud ee bulshada, bal hadda yara faahfaahi. horta waxa fiican inaan isla fahanno xirashada face mask waxa ka horeeya inaan horta talaabooyinkii kale ee ka hortagga xanuunka COVID-19 aynu sameeyno, oo ay ka mid tahay in mar walba faraha aynu meedhno, in guriga la joogo oo la iska ilaaliyo la tacaamulka bulshada kale, in markaad qof aad isla hadlaysaan ama aad wada joogtaan oo kale ay idin dhaxayso ugu yaraan 2 mitir. imika wadamadan caalamka kale ee imika bilaabay in isticmaalaan face mask markay baxayaan waa wadamo ku dhaqmaya 100% qodobada ka hortagga xanuunkan COVID-19. waxay only ay soo baxaan markay u baahan yihiin wax muhiim ah ama raashin ha noqoto ama hawl kale oo degdeg ah ha noqotee, marka ay soo baxaan ayay isticmaalayaan face mask. laakiin annaga waxaad moodaa weli dadkeeni inaanay 100% ku dhaqmaynin talaabooyinka ka hortagga xanuunka COVID-19. marka face mask isticmaalkiisa waxba inoo tarimayso haddeenaan talaabooyinka ka wada muhiimsan aynaan qabanin. qofka aan tagin isagu meelaha dadku isugu yimaadaan ee ka fogaada, miyay qasab ku tahay inuu xidho maaska? waxaa laga baahan yahay qofka inuu face mask xidho markuu isku arko calaamadaha hargabka sida qufac oo kale, hindhiso oo kale, madax xanuun oo kale. hadduu calaamadahaas isku arko wuxuu ku qasban yahay inuu face mask xidho si uu uga hortago inuu dadka kale u qaatin lahaa xanuunka. laakiin qofka haddaanu calaamada lahayn qasab maaha inuu xidho face mask. laakiin sidaan sheegnay weli aanay 100% la ansixinin arrimahan, laakiin wadamaha jira imika isticmaalaya face mask oo soo saaray sharci ah in qof walba markuu baxo inuu isticmaalo face mask. hay'addan CDC la yiraahdo iyaduna arrinkaas way recommend garaysay oo waxay tiri qofku markuu baxayo inuu face mask isticmaalo way fiican tahay. waa tahay taasi waxay Dr. Faadumo Maxamed Ismaaciil oo khadka telefoonka ugu waramaysay waryahayaga Axmed Nagaashe. bal markana aan Facebook si fursada qaar ka mid ah dhegeystayaasha ra'yigooda halkaasi kaga soo dhibteen warbixinta aan ku bilownay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu kaga jarayo ama uu ku hakinayo dhaqaalihii uu siin jiray hay'adda WHO shaaciye ciid oo ka soo qoray magaalada Abu Dhabi. wuxuu leeyahay madaxweynaha waddanka Mareykanka ee joojiyay dhaqaalihii uu ugu deeqi jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ma ahan mid habboon arrintaas, waayo buu yidhi maanta waa markii loogu baahi badnaa oo dunida saameeyey xanuunkan loo maara la'yahay. Jaalle Khadar Cabdulaahi oo Hargeysa ka soo qoran wuxuu leeyahay waa arrin aan wanaagsanayn joojinta uu joojiyey madaxweyne Donald Trump lacagtii uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka, waxaana uu ahayd buu yidhi inuu ka fogaado madaxweynuhu arrimaha caynkaas oo kala ah. dhanka kalena ciyaarihii kooxda Newcastle United ayaa leeyahay haatan waxay qarka u saaran tahay in uu la wareego milkiile cusub kadib markii la sheegay in milkiilaha haatan Mike Ashley uu galay heshiis ah in kooxdaasi uu ku iibiyo lacag. haddaba lacagta waxaa la sheegayaa inay gaaraysa ilaa 300 milyan oo giniga sterlinka. intaa ayaan waqti weyn ku soo gabagabeynay idaacadii subaxnimo uu soo saaray Xasan Cali Geelaan oo Cabdi Ibraahim Cagaarna la socodsiinayay. waxaynu ballan hadduu ay baydmo 2 duhurnimo inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.